waa ku guuldaraystay dhammaan dagaaladii uu hogaaminayay xilli madaxeedkiisiina Masar waxa ay weysay madax bannaanideeda dhuleed ee Siinaa, Gaza iyo Suudaan. haddaba waa kuma Jamaal Cabdinaasir ma waxa uu ahaa laashinkii Carbeed ee ugu dambeeyey mise farsamo yaqaanka balaayadii weyneed ee sababtay in dalalka Carabtu madaxa ku socdaan. Jamaal Cabdinaasir waxa uu dhashay sanadkii 1918 waxa dhalay aabba ka soo jeeda gobolka Saciid Masar ama dhulka loo yaqaan Upper Egypt. Jamaal waxa uu u soo wareegay Qaahira waxa uu ka qayb galay banaanbaxyadii looga soo horjeeday gumaystaha Ingiriiska kadibna waxa uu galay kuliyadda dagaalka isaga oo ku milmay jamaacada Ikhwaanul Muslimiinka isla markaana dhex galay ururada hanti wadaagga iyo shuuciyadda. 1948 waxa uu ka qayb galay dagaalkii Falastiin dhaawac ayaa ka soo gaaray dagaalkaas waxa uu ka mid ahaa cutubkii ka tirsanaa ciidanka Masar ee ku go'doomay magaalada Fallujah. Masar ayuu ku soo noqday isaga oo la daaladhacaya xanuunka jabka iyo guuldarrada isla markaana og in dagaalkiisa dhabta ah uu ka bilaabanayo Qaahira. waxa uu ciidanka xoogga dalka Masar ka dhex unkay ama ka dhex sameeyey urur militari oo qarsoon. ujeeddadiisu waxa ay ahayd inuu xukunka ka tuuro maamulkii xumaa ee jiray xilligaas. waxa ay ahayd koox ku bilaabatay saaxiibadiisii dhabta ahaa ee ciidanka sida Cabdixakiin Caamir iyo Khaalid Muxyidiin. kadibna waxa uu ku soo daray laba kale sida Anwar Saadaad, Cabdilatiif Baqdaadi iyo labadii walaalaha ahayd ee Jamaal iyo Saalax Saalim. howlgalka unugga shaqadii qarsooneed waa ballaaratay waxa ay gaartay in si aan qarsoodi lahayn loogu ceebeeyo looguna caayo gumaystihii Ingiriiska iyo wakiiladiisa gudaha aqalka boqortooyada Masar laguna taageero naftood hurayaasha waddanka iyo Ikhwaanul Muslimiinka oo ku sugnaa deegaanka Qanaat. tababar iyo hub ayaa loo fududeeyey labadaas kooxood. waxa aad kor ugu kacay taageerada dadweyne ee saraakiisha xorta ah sidaas oo kalena waxaa si tartiib ah u laba kacleeyay isjiirkii saraakiisha iyo boqorka. kadibna waxa huray oo holcay dabkii Qaahira waxaana la ogaaday ururkii qarsoonaa. Jamaal waxa uu caddaatay inay waajib ku tahay inuu si dhaqsi leh u dhaqaaqo. 23 Julaay 1952 saraakiishii waxa ay afka ciidda u geliyeen boqor Faaruq iyo maamulkiisii waxaana lagu dhawaaqay nidaamka Jamhuuriyadda Masar. Maxamed Najiib ayaa loo caleema saaray inuu noqdo madaxweyne. ha yeeshee khilaaf ayaa ka dhex aloosmay madaxweyne Najiib iyo Jamaal Cabdinaasir kadib markii Najiib dareemay in saraakiisha ciidanku u adeegsanayaan gabaad si ay u xaqiijiyaan xukunkooda militariga. Najiib waxa uu miciin biday oo garabsaday dadweynaha. Jamaal Cabdinaasirna waxa uu cuskaday iskuna tiirshay ciidanka xoogga dalka. kadibna waxa iscasilay Najiib. shacabka Masar ayaa mar qura bannaanka u soo baxay isaga oo dalbanaya in Najiib ku soo noqdo xilka. Jamaal waxaa qasab ku noqotay inuu u hoggaansamo rabitaanka dadweynaha kadib markii uu faktii hore iyo markii ugu dambaysaba ku guuldaraystay dagaalka dadweynaha. زمن المطرقة. Maxamed Najiib ayaa xukunka dib ugu soo noqday waxaana meesha laga saaray golaha sare ee kacaanka. sidaas oo kalena waxaa la shaaciyey aas-aaska loogu yeedhay hannaanka tala wadaagga Masar. ha yeeshee sidii uu u dhaqmay Jamaal Cabdinaasir si walba waa uga duwanayd ugana adkayd. tala wadaag waxa bilowday bannaanbaxyo uu sirdoonka naasireedku gadaal ka riixayo. waxa ay ahaayeen mudaharaadyo ku baaqaya burburinta hannaanka tala wadaagga iyo xorriyadda hadalka isla markaana raba in kacaanku noolaado. waxa sii korortay go'doominta madaxweyne Najiib. sidaas awgeed Najiib waxa uu ku qasbanaaday inuu Jamaal Cabdinaasir u magacaabo ra'iisul wasaare. taladaas darteed si dhaqsi ah ayuu madaxweyne Najiib u noqday madaxweyne magacuyaal ah oo aan lahayn wax awood ah. kadibna Jamaal Cabdinaasir waxa uu firaaqo iyo jawi ku habboon u helay diyaarinta dagaalkiisa labaad ee uu la gelayo xarakada Ikhwaanul Muslimiinka. Ikhwaanku waxa ay doonayeen nidaam islaam ah oo shareecadu xukunto, balse Naasir waxa uu rabay nidaam diinta iyo dawladdu kala saaran yihiin ama hannaan calmaani ah oo talada ku qabta gacan bir ah. waxa timid dhacdadii fagaaraha Manshiya 8 xabbo oo rasaas ah
ayaa loo riday dhinaca jamaal cabdinaasir oo hadal jeedinaya ha yeeshee middoodna kuma aysan dhicin ilaa maanta dhacdadaas waxaa hareeye mugdi iyo madmadow ha yeeshee waxa ay noqotay dhacdo siisay marmarsiyo fiican si uu meesha uga saaro xarakada ikhwaanka waa laalay xarakadii ikhwaanka waxa uuna dil toogasho ah ku fuliyey 7 ka mida hoggaankeeda waxa uuba kumannaan ka mid ah xubnaheeda dhigay xabsiyada maamulkiisa kuwaas oo ahaa xabsiyo aad u sumcad xun madaxweyne najiibse waxa uu uga takhallusay si kama dambays ah waxa uu ku riday xabsi guri socday sannado badan kadibna gacantii birta ahayd ee naasir ayaa qabatay hoggaanka masar القومية والمجد tallaabadiisii koowaad ee uu qaaday waxa ay ahayd inuu diiday ujanjeeridda waddanka ee dhinaca reer galbeedka marka la joogo hardanka kala dhaxeeya awoodda hantiwadaagga intii lagu jiray muddadii uu socday dagaalkii qaboobaa sidaas awgeed khilaaf ayaa ka dhex dhashay jamaal cabdinaasir iyo ingiriiska kadibna waxa uu miciin biday maraykanka si uu isugu miisaamo awooddooda fuluneed ee gobolka ha yeeshee washington waa diidday inay hubkeeda siiso qaahira kadibna waxa karay oo cirka isku shareeray ballanqaadkii maraykanka ee maalgelinta mashruuca weyn ee naasir ama biyo-xidheenka sare ee masar الأمريكان قمح ولحمة وفراخ ما بناخدش مصانع والله أبدا يعني ما بيدوناش مصانع بيدونا بحوالي 50 مليون جنيه في السنة احنا ميزانيتنا في السنة 1100 مليون جنيه بنصرف على الخطة حوالي 400 مليون جنيه أو 500 مليون جنيه إذا دعا الأمر إن احنا نوفر 50 مليون جنيه بنوفرها على الجزمة ولا بتهمنا والله العظيم waxa uu aaday midowga Soofiyeed isaga oo heshiis hub oo taariikhda galay la saxiixday Jugoslovakia ka hor intii uusan qaadan go'aankiisii weynaa ee qaramaynta kanaal Suez taasina waxa ay sababtay in Ingiriiska, Faransiiska iyo Israa'iil ay dagaal weyno guud ku qaadaan Masar dagaalkaasi waxa uu ahaa jabkii ugu horreeyay ee gaaray ciidanka Naasir ha yeeshee waxa uu ka baxay dagaalkaas isaga oo siyaasad ahaan guulaystay kana takhallusay haraaga awooddii fuluneed ee shisheeyuhu ku lahaa waddanka si uu u noqdo tusaalaha iyo ilayska carbeed shacbigana ugu muuqdo inuu yahay kan sandulleeyey gumaystaha iyo farriinsidaha qowmiyadda carbeed waxa ay ahayd sharaf iyo karaamo ay suurtagal tahay in aan naasir sawiran maalinna inuu helayo جابوا الأساطيل هنا بورسعيد هزموهم هل الأساطيل نفعت معانا سنة 56 ولا بتوع المظلات صرفوا 100 مليون جنيه وطلعوا بحسرتهم طلعوا بخيبتهم النهاردة ما قدامهمش إلا إنهم يشتمون laashinnimadiisii waa kortay waxa ay soo jiidatay taageerayaal kala jooga dhammaan caalamka carabta bishaaradiisii koowaadna waxa ay ka timid Dimashq kadib markii ay hoggaamiyeyaashii Suuriya iska xaadiriyeen Qaahira iyaga oo doonaya midaynta Masar iyo Suuriya si degdeg ah ayaa Jamaal u aqbalay soo jeedintaas sidaasna waxaa ku samaysmay jamhuuriyadda carbeed ee midowday sanadkii 1958 isla sanadkaasna baaq ayaa ka soo gaaray Naasir dhinaca Ciraaq waxa dhacay afgembi military oo ay hoggaaminayeen Cabdikariin Qaasim iyo Cabdisalaan Caarif kadibna Naasir ayaa si degdeg ah u aqoonsaday labadii sano ee xigtayna baaqa korneylku waxa uu gaaray daafaha adduunka laga bilaabo Masar, Sham, Ciraaq ilaa Algeria, Afrika iyo Aasiya. Naasir waxa uu noqday hagaha kacdoonnada afgembiga iyo dhaqdhaqaaqyada gobonnimo doonka ah. Baaqiisu gobolka oo dhan waxa uu u rogay madaxa ha yeeshee wax walba waxa ay bilaabeen inay u dumaan si kedis ah. الانهيار sanadkii 1959kii Cabdikariin Qaasim ayaa afgambiyey xukunkii Naasireedka ee Ciraaq sidaas oo kalena waxa uu xilka ka tuuray wadaayigiisii Cabdisalaan Caarif
waxa uuna ku xukumay dil toogasho ah kadibna xukunkii dilka ahaa ayuu ka fududeeyey isaga oo la keliyoobay talada ciraaq dhinaca suuriya reer shaam waxa ay ku kaceen xukunkii birta iyo holaca ahaa ee maamulayaasha jamaal cabdinaasir midowgii labada waddanna waxa uu ku dhammaaday afgembigii cabdikariim naxlaawi sannadkii kii isla markii uu dhammaaday midowga labada waddan ciraaqna ay ka baxday gacanta naasir haybaddii naasir ee carabta waxa gaadhay dharbaaxo adag kadibna waxa uu bilaabay inuu raadiyo guul go'aamisa xaalka dibna ugu soo celisa mar kale hoggaamintiisii carabta yemen waxa ay ahayd fagaare ku habboon go'aanka jamaal waxa uu u diray yemen 70,000 oo askari oo ka mida ciidanka masar si loogu taageero kacdoomayaashii u dagaalamayay nidaamka jamhuuriga ee ka soo hor jeestay boqortooyadii saydiyada معركة اليمن معركتنا ثورة اليمن ثورتنا السنة اللي فاتت وقفت هنا وكلمت قدامكم وقلت لكم ان لا مهادنة مع الرجعية waxa uu ahaa dagaal uu u rabay laashinkii qowmiyadda carbeed inuu noqdo mid degdeg ah isla markaana horseeda go'aan wax kala saara ha yeeshee waxa gaaray jabkiisii labaad yemen waxa ay noqotay goob ciidanka xoogga dalka masar ku haftay 5 sano oo dhammaystiran oo dagaalku socday 5,000 oo askari oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka masar ayaa ku baxday khilaafkii kala dhexeeyay waddamada carbeed ee dariska la ah ayaa cirka isku shareeray waxa ay ahayd haybad lurka liicliica iyo gilgilku ku bateen gudaha waddanka waxaa gilgishay tiirarkii xukunkiisa khilaafka kala dhexeeyay saaxiibbadiisii horena waa sii batay waxa sii kordhay caburinta waxaana xarkaha goostay carada iyo caloolxumada dadweynaha aamusan ee ku hoos jira jeedalka waxaa la dhisay nidaamka midowga hantiwadaagga oo loola jeeday inuu dahaar cusub u noqdo xukunka milatariga waxaana bilowday ololaha qaramaynta ee jamaal boqolaal shirkadood ayaa la qarameeyey si ay uga mid noqdaan hantida guud ee masar dhaqaalihii waddankuna waxa uu u afduubnaa shirkadahaas waaweyn oo ay maamulayeen saraakiisha ciidanka oo ka dhignaa dabaqadda sare ee masarta cusub iyo booliiska nabadaynta xukunka naasir ha yeeshee gaabiska iyo guuldarradii laashinka carbeed si dhaqsi ah ayuu u yimid weliba meel aan ka fogayn ilma adeeradii dhoolatus milatari ayuu la galay israa'iil kadib markii ay ku hanjabtay inay duulaan ku bixinayso suuriya naasir waxa uu xidhay gacanka caqaba isaga oo diiday in loo sii maro biyo-xidheenka tiiraan mar kale waxaa soo muuqatay inuu gefay qiimaynta sidaas awgeed waxaa holcay dagaalkiisii saddexaad sannadkii 1967 iyada oo laga duulayo caalamka qiyaasta idaacadaha iyo wargeysyada masar waxa ay baahiyeen warar ku saabsan in ciidanka xoogga dalka masar uu guulo waaweyn ka gaaray dagaalka balse marka la joogo caalamka dhabta iyo xaqiiqada dadka masaaridu waxa ay ku soo baraarugeen xaqiiqo aad u qaraar una xun saacaddii ugu horraysay ee dagaalka oo keli ah waxa si u eg si dhammaystiran loo burburiyo hubka ciidanka cirka iyo goobaha laga maamulo hawada sare ee masar khaza iyo siinaa ayaa galay gacanta israa'iil sidaas oo kalena buuraha goolan daanta galbeed iyo qudus ayay qabsatay israa'iil iyada oo isballaarintaas yuhuuddu sida daadka u socoto ayaa naasir ku cararay qaramada midoobay si uu u codsado in xabbadda la joojiyo marka isaga loo eego waxa ay la ahayd in erayga xabbad joojintu ka fudud yahay erayada guuldarrada iyo jabka kama dambaystiina kadib 3 guuldarro oo guud oo waaweyn waxa uu go'aansaday inuu qaato mas'uuliyadda markii ugu horraysay waxa uuna shaaciyey ka degistiisii caanka ahayd ee awoodda iyo talada waddanka لقد قررت أن أتنحى تماما ونهائيا عن أي منصب رسمي bishii juun ee isla sannadkaas balaayadu dhacday mar kale waxa bilowday dibadbaxyo lagu dalbanayo inuu xukunka ku soo noqdo ha yeeshee markan ma aanay ahayn dibadbaxyadii ay sirdoonkiisu dhigi jireen jabka iyo guuldarrada intaas la eg ma ahayn mid ku filan inay meesha ka saarto ama ka hor wareejiso masaarida awoodda xukunkiisa
ha yeeshee isbeddelku shakila'aan waa imaanayaa. نهاية النبي. waxa ay ahayd guuldarro ay geysatay Israa'iil oo ay ku lamaansanayd maxkamad lamood ka dhacday Masar, taas oo mas'uuliyaddii guuldarrada u saarisay laba duuliye oo darajo hoose ah kana tirsanaa ciidanka cirka ee Masar. si degdeg ah ayaa bannaanbaxyo uga bilowdeen jaamacadda Qaahira. waxa ay ahayd markii ugu horraysay ee masaaridu ay sameeyaan dibadbaxyo ay uga soo hor jeedaan laashinnimada Naasir, mana ahayn markan bannaanbaxyo darteed loo sameeyey. caburinta ayaa sii laba kaclaysay, qof walbana waxa uu qarka u saarnaa xabsi iyo jirdil. waxa maradu ka dhacday xukunkii naasiriga ahaa, waxaana caddaatay in dhammaadka iyo gunaanadka maamulka korneelku soo dhow yahay. intii lagu jiray bilihii xigay musiibada, naasir xooggiisa iyo dadaalkiisa oo dhan waxa uu isugu geeyey dib u soo celinta dhulka la qabsaday. waxa uu amray in la qaado dagaalka burburinta awoodda cadowga iyo dhiigbixinta kartidiisa, kaas oo socday muddo 2 sano ah. bishii Juun sannadkii 1968 mar kale ayuu aaday Moscow. markan oo keli ah uma tegin in la siiyo hub, balse waxa uu rabay in la diro ciidan Soofiyeed ah oo ka dagaalama Masar. guuldarradii ayaa jebisay qabkii Naasir, ha yeeshee kuma filnayn in masaaridu ku kacaan hoggaamiyahoodii aan dhicin iyo geesigoodii guulwadaha ahaa. iyaga oo ku dhow malaayiin ayay isugu soo baxeen sagootinta janaasadiisii bishii Sebtembar sannadkii 1970. waxa ay ahayd mid ka mid ah janaasooyinka ugu waaweyn ee soo mara taariikhda. muuqaalka sagootinta janaasadu waxa uu ahaa mid aad loo weyneeyey oo muujiyey in sheekada ku saabsan laashinnimada Naasir aanay weli dhammaan. doodda la xiriirta Jamaal Cabdinaasir waa sii taagnaan doontaa. waa geesi guulwada ah oo wareemay cadowga, waa garsoore cadaalad ah iyo hoggaamiye ummadeed oo aad loo jecel yahay. dhinaca kalena waa sii jiri doonaa isaga oo ah keligii taliye dhiigyacab ah, fircoon, hoggaamiyihii guuldarrada ee aan weligii ka macaashin dagaal uu galay. waa kii la isu soo diray ee caburinta iyo jirdilka. waa muran ku saabsan 2 naasir oo aan weligii istaagayn, waxaana muuqata in murankaasi sii jiri doono weligii. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan ha iloobin inaad subscribe aad tiraahdo. haddiise aad tahay macmiil soo noqday ha iloobin in aad gambaleelka aad furato si aad ula socoto waxyaabaha aanu soo gelinno channelkan. haddii aad u aragto in muuqaalada noocan oo kale ah aad wax ka faa'iidayso, like saar si aan u aragno cadadda tirada danaynaysa. mahadsanid.